بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabnaa maanta halkaa inaan ku qabanno shir jaraa'id oo ugu waramayna xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha oo khilaaf ka taagnaa madasha sanadka bixinta iyo u dhaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo guud ahaan dalka waxa ka taagan intaba ugu horeyn waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheegno in madax kasta oo dalka loo doortaa waxa ugu muhiimsan ee laga rabaa inay tahay in uu isku soo celiyo ama soo celiyo kalsoonida dadkii kala irdhoobay ee colaadaha sokeeyay ee kala irdhayeen ee Soomaaliyeed una dhiso hoggaanka siyaasadeed iyo hay'adaha siyaasadeed ee la doortay inay dhisaan aaminaadda lagu qabo dowladnimada asaaska waa intaas waxaana sal u ah dastuurka dadka Soomaaliyeed dhowr iyo 10 shir oo ay dibadaha ku qabsadeen kadib ugu dambeyn waxay salka u dhigeen heshiis siyaasadeed oo uu ka dhashay dastuur ama ahdi ku meel gaar ah oo markii dambe u xiibsiibtay dastuur ku meel gaar ah ahdigaas ku meel gaarka ama dastuurkaas ku meel gaarka ah oo qaybtii ahdiga waxba laga bedelay wuxuu ku saleysnaa 4 qodob ayaa saldhig u ahayd oo ah in dalkani uu yahay dal federaal ah baarlamaani ah awooduna ay qaybsan tahay 4 sanana mar doorasho la qabto taas dawladda hadda jirta oo hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh waa ay dhinac martay markii ay dastuurka kaligeed si unilateral ah oo cidna heshiis kula ahayn ay u bedeshay waa la socotiin oo nidaamkii baarlamaaniga waxaa loo rogay nidaam madaxtinimo oo la leeyahay madaxweynaha toos ayaa loo soo dooranayaa ra'iisul wasaarahana isaga eri kara halkii 4 sano doorashada ahayd waxaa laga dhigay 5 sano awood qaybsigii oo ahaa in qolo hadii qaadato madaxweynaha qolana ra'iisul wasaaraha qolo kalena guddoonka baarlamaanka iyo hay'adaha kale dawladda ah in la kala qaato waxa la yiri madaxweynaha ayaa eri kara ra'iisul wasaaraha anaga waxaan arkaynay qodobadaas inay taabanayaan ama ay dhaawacayaan waxyaalihii saldhigga u ahaa heshiiska siyaasadeed intaas waxaa dheer madaxweynaha wuxuu sameystay doorasho asaga ku jin ah isaga la eg sidoo rabo ayuu u toshay doorashadaas waxay leedahay xeer guddi doorasho oo asaga sameystay oo magacaawday mar allaaliye markuu amar siiyane amarkiisa fuliyo maanta ugu dambeysay waxaan arkay warqaday soo saareen leeyihiin xisbiyadii dib u furnay waa amar xasan sheekh ka yimid wuxuu kaloo ka kooban yahay hanaan doorasho wuxuu kaloo ka kooban yahay guddi doorasho hanaan doorasho iyo sharciga xisbiyada saddexdaba dalka waa lahaa markuu madaxweyne xasan sheekh talada la wareegay guddi doorashona waa jiray iyo sharciga ku dhisna nidaam sharci xisbiyana waa jiray sharci doorashona waa jiray saddexdii wuu bedelay madaxweynaha wuxuuna toshay shaati asaga la eg dood adag ayaa asaga iyo madasha dhex martay madaxweynaha waxaan ku faraxsanahay inuu habeen dhaweed doodiisii dadka Soomaaliyeed oo la wadaagay laakiin waxaan rabaa galabta inaan ii sheego inta uusan dadka Soomaaliyeed u sheegin madaxweynaha wuxuu ku celceliyaa doorasho qof iyo cod doorasho qof iyo cod sideedaba waa rabitaan qof kasta Soomaaliya oo ay madasha kow ka tahay ay doonayso laakiin su'aashu waxay tahay doorashadu qof iyo cod ma tahay doorashadu qof iyo cod ma tahay jawaabtu waa maya sababtuna waxa waaye madaxweynaha wuxuu nala qiray in 275 kursi ee beelaha ay kala lahaayeen ay sideedii tahay oo qabiil wax soo ziyaadaya iyo qabiil wax ka nuqsaamaya aysan jirin doorashada marka qofka la dooranaya qabiil wali u xiran yahay taas macnaheedu waxa waaye qof iyo cod maaha qof iyo cod waxa la yiraahdaa
kuraas seejo taalla dadkuna si xor ay ugu tartamaan cidda la dooro doonana aan la aqoonin qabiilka uu yahay iyo meeshuu ka soo jeedo markaan yidhi madaxweyne haddii aada ogoshahay in 4.5tii 275 kursi lagu saleeyo qof iyo codda aad sheegayso waa maxay hadday tahay macnaheeda kursiga aniga xildhibaankayga aan ku fadhiya haddeertaan baarlamaanka waxaa soo doorato been la yidhaahdo ceer koofureed haddii kursi weli ceer koofureed leeyihiin qof iyo codda maxay tahaan aan weydiino madaxweynaha waxaa laga hadli karaa wuxuu yahay awal kursiga cidda dooranaysa iyo qofka la dooranayo hal qabiil ama hal jufo u xirnaa haddii aad ka wado waxaa la furayaa cidda doorashada codka tuuraysa yaa laga dhigayaa haddii kursiga maalan uu yaalo Wardhiigley ama uu yaalo Gurceel ama uu yaalo Dhuusamareeb dadka waxaa la furayaa dooranaya waa ka wada hadli karnaa hanir wax dhiba oo ay madashu ka qabto sidoo ma laha laakiin dadka Soomaaliyeed ha u sheegin meesha inay taalo doorasho qof iyo cod ah taas waa qodobka labaad waxaa la socotaan in 3 dowlad goboleed oo madaxweynaha ku jaal ah ay 2 sano ka badan madaxweyneedkeedii dhaafeen waa weydiinay madaxweynaha waxaan ku niri dadkan Puntland doorasho ka dhacday madaxweynaha la doortay doorasho dadban ee baarlamaanka Puntland la doortay Jubbaland ka dhacday hadda maanta waxay ka socotaa waqooyi bari maxaa diiday 3dan in doorasho ay galaan wuxuu yiri doorasho dadban ma rabo waxaan rabaa doorasho qof iyo cod ah maxaad hadda waqooyi bari uga wadaan weydiin waa nooga jawaabaya madaxweynaha mid dadban hadda maxay waqooyi bari uga socotaan uu nooga jawaabi waayay waa asaga rabitaankiisa ay madaxweynaha ku saleysan yihiin waxaan weydiinay dastuurka adiga bedelataan ku raacnaan waxaa saxiixday bishii March 2004 oo saxiixay dastuurka madaxweynaha uu bedeshay waxaan yiri madaxweyne dastuurka bedelatay adiga kaagan ku raacayna waxaa ku qoran in meerka Muqdisho la dooranayo in la dooranayo ku qoran March markaas saxiixday December 2024 meher cusub magacaabay dastuurkii ma jabiyay madaxweynaha waa jabiyay waa kii sidii asaga uu bedeshay mid kale ma haddana 5 bil ka bacdi ama 6 bil ka bacdi bishii hadda meher kale oo magacaabay dastuurkana maxaa ugu qoran asaga oo saxiixa oo lagu soo saaray gazetka officialka lagu soo saaray ee dawladda maxaa ku qoran meherka waa la dooranayaa marka meesha uu rabane doorashada dadban oo madaxweynaha ka qabana meesha uu rabane markuu rabane dastuurkiisa xataa waa jabi karaa marka la leeyahay marka dawladda Soomaaliya waa Xasan Sheekh saasa laga wadaa dastuurna ma jiro kii la isku raacsanaa haduu yahay kii la bedelay haduu yahay baarlamaan ma jiro garsoor ma jiro wax la yiraahdo dalka waxa ka jira madaxweyne Xasan Sheekh oo ka shaqeeya shidaalka ciidanka la siinayo iyo dastuurka bedelaadiisa inta waa saa ka shaqeeya madaxweynuhu adaa macro manager noqday adaa yiri saliicadaydan anaa beegaya ya heshiiska caalamiga anaa soo galay xukuumadii aw ma jirto xukuumadda maqasheen ma jirto dawladda qaybeedii kala aw ma jiraan marka madaxweynaha qof ma waxa la haystee xukunkii inuu asaga qaatay oo kaliis jaabka ugu jiro waaye waxa la haysto dalka mandate-ka madaxweynaha waxa ka dhima 8 bilood soo saasma doorashadii federaalka ahay goor la qabanayo ma naqaan dawlad goboleedyadii mandate-kii waa dhamaaday sharci la'aan ku joogaan asaga la jaalka ah banaadirna waxa ka socoto doorasho qof iyo qori ah ma qof iyo qori ahayn dadka laga dejinayo koostarada iyo caasiyada iyo meelaha xamaaliga laga kaxeynayo qoriga lagu afduubayo oo qasab uu diiwaan gelinayo oo qaarkood 3 jeer loo diiwaan gelinayo oo ay shaqaysan laayiin fiiri qof miskiina oo joorniyeeri ku nool wuxuu maanta dhismaha ka soo shaqaysto ama wuxuu maanta bajaaj ka shaqaysto ama wuxuu maanta xamaali ku soo shaqaysto yaa la qafaalaya waxa leeyahay isdiiwaan geli ma midaas qof iyo qori ahay ana waxa isweydiiyay dadka hadii qori lagu diiwaan geliyo tolo baasuuke ku coday doona soo wax la yaab ma
doorasho waxaa la arki jiray xor ah oo dadku hadday rabaanna ayaga isdiiwaan geliyaan hadday rabaanna ay doorasho galaan madaxweynihii wuxuu yidhi xisbiyaan samaystay haye waxaan xisbigaas annaga waxaan u bixinay xaggeen uga haraa sababtoo ah dowlad goboleedyadii asaga la jaalka ahi waa ku jiraana la yidhi kabinetkii golihii wasiirada waa ku jiraan haye baarlamaankii waa ku jiraa nuskiis haye qof kastoo dhulii boos la siiye waa ku jiraa haye war doorasho qof iyo coda dadka soomaaliyeed horta inay mid fahmaanaan rabnaa doorasho qof iyo coda state formationka markii laga hadlayo dhismaha dowladnimada markii laga hadlayo doorasho qof iyo cod waa meesha ugu dambeysa meesha ka bilaabata maaha maxaa saas loo leeyahay waxaa ka horeeya amniga waxaa ka horeeya garsoorka waxaa ka horeeya dhaqaalaha waxaa ka horeeya maamulka qof hantidii dalka boobaya maalin cad oo shacabka ay ka qaylinayaan oo maanta dadka guryahooda laga barakiciyey iyo kuwa dhulkooda lagu fidsaday maxkamadda u dacwadaan ma leh nin garsooraha ugu yiri dacwaan qaadi karnaa ma jirto dacwo hal dacwo oo dhul ku saabsan oo qaadi karnaa ma jirto hadduusan garsoor jirin la aamino hadduusan amni jirin haddaysan cadaalad jirin dadaa waxay isku qaldaan ay kala garanaynin amniga iyo badqabka iyo xasiloonida waxa u dhexeeya ayna kala garanayn marka see qof iyo cod ugu aamina qof aanan garsoorkiisii oo madaxda ka ahay la aamini karin hay-adihiisii maamulka aan la aamini karin kuwiisii cadaaladda aan lagu kalsoonaa karin ammaankiina oo qalqal 4 saac ku jiro madaxweynaha markuu magaalada dhex maraa iga marqaataatiin waa la xiraa afarteeda koona waa la xiraa markuu dhex maraa magaalada meel kastana beri dhagaxa ku go-an mabeenaa isaga sheegayna xaggee lagu qabanaa doorashada doorasho sideedaba qof iyo coda state formationka waa meesha ugu dambeysa meesha ka bilaabata maaha dadku markay is aaminaan oo ay nabad noqdaan oo ay garsoor ku kalsoon yihiin helaan oo hay-ado maamulo ku kalsoon yihiin ay helaan oo hay-ado dhaqaale ay ku kalsoon yihiin ay helaan oo se madaxdu jaabka lacagta ku shuba karin ka soo qaad anuu xisbiga madax u ahay madaxweynaha xisbiga madax u yahay lacagta meeshaan lagu tamashlaynaayo maxaa sheekh maxamuudaa iska leh dadka meeshaan la soo buuxiyay maalada hoolka GSB maalinta GST lagu qabanayay maxaa sheekh maxamuudaa iska leh aniga asaga anagoo shiida meeshaan fadhi jirnay $6,000 isku darsan jirnay saa wax u qabanee yaa siiyey lacagta xasan sheekh lacagta oo xasan ku tamashlaynayay Soomaaliyaan weydiiye aniga asaga markii aan activity qabanayno $6,000 isku darsan jirnay mid ugu musharaxiinta duqa inta uu keen lacagtan yaa weydiiyey oo ku maasaa iska leh markay lacagta dadka u dhaxayso xisbiyada markii dhaqaalaha dalka u dhaxeeyo markii awoodda dalka u dhaxayso markuu garsoorka dalka u dhaxeeyo markuu amniga dalka u dhaxeeyo wasiirkiisa difaaca handaday wasiirkiisa difaaca ana handaday annaga maxaan u haysanaa serious waxaan aaminsanahay madaxweynaha fariinta soo dhiibay nin aniga handadaaya oo yahuud maatiina ka keena ile see doorasho loo galaa oo hubkii iyo qarankana maamulo iyo ciidankii ifahamsiisa doorasho loo galaayo waxaas marka waa iska sheeko iyo dhayal waaye arrintaas handadaada ah annagu haddaan madashanahay serious u haysanaa waxaan u haysanaa inay golo loo dhan yahay oo madaxweynaha fadhiyo ay ka soo baxday ilaa aan madaxweynaha afkiisa ka maqalno inuusan wasiirkiisa arrintaas iyada ah ku matelin waxaan haysanaa inay tahay arrin laysla ogyahay waxaas ayaan daro ah in uu ku faano wax ficil aada u fool xun oo madaxweyne asaga ka horreeyey oo geystay inay dowladdiisa ku faanto waa wax aada u fool xun arrinta dhulka faray ka baxday cudur faafay noqotay hadda maxaa saas ka dhigay dhulkii dowladdu waa la soo dhaafay hadda waxaa la yidhi wax la yidhaahdo kufidsi madaxweynaha dhulku soo siinaayo haye gobolkaa tegaysaa waa kuu fidinayaan dad la yaqaano qoysas la yaqaano dad la yaqaano magac leh dhulkooda 30 sano 40 sano
la yaqaano 50 sano ay leeyihiin yaa dhulkoodii lagu fidsanaya waxaa la barakiciyey dadkii danyarta ahaa askariga Soomaaliyeed $200 u qaataa xagoo degan yahay in la tahay ma guri weyn oo xasha ku jiro ama wasiirada ay ku jiraan mise bulad buruufa ku socdaa qoyskiisa waa danyar ku nool dhul dawladda ay leedahay xaqo ugu leeyahay dawladda inay meel degaan askarigaas naftiisa huraaya ee difaaca ay siiso waa barakicisa dawladda yaa la naaxiyey siyaasi qaraabo ganacsade sargaalka dadka barakiciyey intaasaa la naaxiyey faadkaatisaa la yidhahdaa makulaalaha cayilan in yar oo faadkaatis ah la soo saaray dalkii danyartiine looma nixin maxay keentay dhulka inuu qiimo jabo haddaa ogtihiin haddii kaleba dhulka Soomaaliya wuxuu yahay stock exchange maaragtay New York iyo London iyo waa saas wareegay dhulka Soomaaliya saas oo kale waay dadka intooda ba dhulka lacagta gashtaan kii hore u gashtane dhulkii waa ka qiimo jabay kuwii lacagta ka cadaysto masaakiinta ahay lacagta laga qaatane dhulkii waa ka qiimo jabay maxaa kaloo dhacay waxaa dhintay spiritkii ama ruuxdii tartanka ganacsiga dhimatay sababtoo ah nin baa baxaya ama gabar baa baxaysa madaxweynaha dhul soo siinaya 5 milyan ka faa'iiday dalkan adeegiisu wuxuu ku dhisnay private sector ganacsi gaar loo leeyahay oo tartan ku dhisan oo ku dhisnaa hadduu caafimaad yahay hadduu waxbarasho yahay hadduu jaamacad yahay hadduu oo ganacsiga diyaarado yahay telecommunication yahay bangi yahay private sector oo ku dhisnaa rajada aan lahayn intaasay ahayd adiga se u ganacsanay markii nin maalinta jiraya oo dhul 5 milyan 6 milyan hebel waxa uu leeyahay jaamacadda hebel la soo siiyay tarabuunka hebel la soo siiyay maxaan ku shaa waxa igu darnaa waxay ahayd MCH ku yaala wardhiigley oo kaligiis caruurta lagu nafaqay jiray xataa waa la jabsaday nin baa wuxuu ugu yiri bartaas controlka afgooye sandaqadii laba qolo ku taalay oo canshuurta lagu qaadi jiray askartii inta la gaday ee askartii banaanka canshuurta ku qaada bilaa jacarab xataa waa fakawi suuqi bilaa jacarab xataa waa fakawi maxaa dhimanayaan niri spiritka iyo ruuxda tartanka ganacsiga waa dhimanaa adiga adoo maanta oo dhan shaqaysanay oo dhidka tabcay markii nin inta iska baxo ama gabar iska baxdo dhul 5 milyan la iska siiyo maxaa kula tartamaysaa say ganacsi u jira ganacsi ma jiri karo adeegii iyo tartan ganacsiga halkaas uu ku dhintay dadka la barakicinayo meesha laga barakicay isbitaal looga dhisaa iskoola looga dhisaa jaamacada looga dhisaa masjid kala la siiyaa dad kala la siiyaa oo ayaan daro waxaan ugu baaqaynaa dadka hantidooda la dhacayo in ay codkooda muujiyaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa maalmahan waxaan arkaynaa dad is abaabulay oo codkooda muujinayo waa in taageersanahay waa in garab taaganahay waa in garab istaagi doonaa ogaada tabaryaradu ma aha ciidan hub ma aha ama tabartu iyo qofka inuu madax yahay ma nin wax dhacay oo tuug wax ka fulisan male saas daraadeed xaqa wax kasta asaa ka awood badan hadda xaq ku taagan tahay cid kasta oo ka awood badan kaliga aawad arabto marka codkiina muujiya iska dhiciya kuwa waxay ku leeyihiin dhulkan madaxweynaha waa bixin karaa oo kuwii ka horeeyaba waa bixi jireen kuwii ka horeeyay dhul dawladeed ma bixi jirin dhul dawladeed ma bixi jirin dhul dawladeed wasaarado wakaalado isbitaallo xarumo caafimaad MCH goob ciidan xero ciidan ma bixi jirin waa wax ugub ah oo la yaabo waxaan rabnaa in dadka Soomaaliya u sheegno in Soomaaliya waxay ku duntay ay ka soo kaba weysay ay maanta socdaan waa eexda waa qaraabo kiilka waa musuqa waa ku takrifalka awoodda ku takrifalka hantida qaranka ya socoto maanta dawladdii Soomaaliya waxay noqotay family enterprise dawlad qoysay noqotay haddaad ka tagto iyo haddaad garoon diyaarad tagto iyo haddaad madaxtooye tagto iyo haddaad wasaarad tagto waa inaad martaa qof family haddii kale wax arki maysid enterprise waxay noqotay family dawlad qoysay noqotay waa xeerkii ugu xumaa maxaa xeerkii ugu xumaa ay noqonaysaa
musuqa iyo eexda oo wax jiri laakiin waxaa cusub in lala jahro in madaxweynuhu yiraahdo gabadheeda waa shaqaaleysan karaa wasiirka uu yiraahdo qabiilkii qofka qabiilkii meel geysan karaa wasiir kale oo soo istaago yiraahdo sadaqaan nagu leedihiin waxaan nagu leedihiin caafimaad iyo malaha mid kale oo soo istaago macnaheedu jaharka waa jaharka waqtiga macsida waxa ugu daran mid la jahro oo qofkii yiraahdo waxaasan sameeyay alla macsida waa la dhuntaa ilaahna waa loo tooba keena maanta waxa socda waa la jahar taasaa ka dhigaysa heerkii ugu xumeed dadka Soomaaliyeed ee hantidooda la boobay ee la barakiciyay ee la dhacay si nabada isaga celiya dawladda iska celi kartaa Soomaalidu hargeysa wax ka dhacay moogeen inta ganacsatada heshiisay dawladda la heshiisay sicir goosatay shacabku waa mudaharada markii degdeg u noqdeen haddaad awoodiina muujisaan oo hanjabaad in hajabaya aadan dhag u dhigin annagana waa sheegna waa in garab taaganahay horena waa inay garab taagnaa jirnay waa iska celi kartaan kaligii talis qofka daciifsan male hadduu musuq iyo iyo qaraabakiil wadane waa kasii tabar daran yahay xaqa idinku ila jira madax badan oo adduunka ka carara xukunka Bangladesh ka carareen Sri Lanka ka carareen intaasoo dal ka carareen waa haday dadka awoodooda inay awood leeyihiin ay aaminaan dadka Muqdisho waxa laga rabaa inay aaminaan inay awood leeyihiin oo iska celi karaan burcada iyo kuwa isku bahaystay inay dhiig meertaan dhiigooda ay jaqaan waxaan rabaa saddex arrin aan sheego annaga madasha daanahay khadcas aan leenahay maxaa qadcas noo ah waxaad qadcas noo ah extension muddo kororsi maya cid aan ka yeelayna male doorashadan malaakuudka iskor saaran oo qoriga la isku haayo meesha u socota ma taqaaniin extension u socota 8 bilood ka bacdi xasan sheekho extension soo fadhiistay aan noo madlan laakiin annaga muxuu noo yahay qadcas uu noo yahay maxaa kaloo qadcas noo ah doorasho iyo dastuur dalka kala qaybinayo kamid mani doorasho iyo maxaan yiri dastuur dalka lagu kala qaybinayo qayb kamani qoladan saaxiibada ay xukun joogto oo madaxweynaha weyn yahay dalna waxay ka yaqaanaan xamar dawladnimada waxay u haystaan boob inay tahay dhul kulama jirno madasha hadaan nahay kulama jirno midnimo Soomaaliyeed rabnaa Soomaali kala maqan isku raadiyaan rabnaa hantida la boobayo ee qaranka Soomaaliyeed ka soo horjeedna dawladnimada loo haysto inay dhac iyo boob tahay yaan ka soo horjeedna bulshadana waxaan ugu baaqaynaa in aysan sheegnay awoodeeda ay soo ceshato arintu gabagabadii arintu ma aha khilaaf doorasho iyo dastuur siyaasiyiin u dhaxeeyo waxa halis ku jira jiritaankii dawladii jamhuuriyadda saddexaad halis ku jirta inay kala tagtay halis u tahay damac awalna waxay ku duntay damac nin haddana waxay kala tagi rabtaa damac shakhsiyo kala tagi rabtaa adduunkan aan naqaan ma adduunki aan naqaan ma waa adduun saa la socotiin 6 head of state and government prime minister madaxweynayaal Europeana ee White House ka hal hadal u tagayaan inay madaxweynaha Mareykanka soo qanciyaan adduunkaasaan joognaa adduun waxaan joognaa go'aanka saacad lagu gaari karo adduun waxaan joognaa oo soo noqday conflictidii statuska yiri markii dagaalkii labaad qaboobaa dhamaado Mareykanka oo guuleysto adduunkiina parallelka oo noqdo kaliis uu ka talinayay Mareykan iyo reer galbeed waxay isaayeen non state actors waxa la yiraahdo argagixiso iyo dad aan dawladda aan ahayn actors dawladeed isaayeen maanta adduunku wuxuu ku soo noqday adduunkii conflictiga dawladaha u dhaxeeyo ku soo noqday Soomaaliya maanta meesha ay joogto waa meel aysan dawladdu wax iska dhici kartaa noqon karin lana doonayo jamhuuriyaddii in la kala diro saas daraadeed haddaad ganacsato tahay haddaad aqoon-yahan tahay haddaad professor jaamacad tahay haddaad arday tahay haddaad suxufi tahay haddaad sheekh tahay mas'uuliyadana saaran doodaan mid u dhaxaysa xasan sheekh iyo mucaaradkiisa maaha waa dood ah ma sii jiraysaa jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya ma sii jiraysaa doodan hortaal taasaan u baahanaa inaan si serious runtii aan uga fakarno nimanka duurka jira argixisada ah
dooda ka dhex socoto waa ogtihiin tii hore way ka bedelanta adduunkani waa ka bedelan yahay kii hore saan sheegay ciidanka amisomna waa markay ugu tira yaraa inay soomaaliya joogaan weliba aan funding iyo dhaqaale loo haynin lagu sii masruuf hadday madaxda dalka ku talagaleen inay sidii ashraf qaani diyaaradda raacaan dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay dalkooda ay badbaadsadaan oo ay ka badbaadsadaan koox yar oo dhiigmiirada oo rabta inay dadka soomaaliyeed iska hor keento waa mahadsantihiin